waxaa caasimadda magaalada Jigjiga saaga soo gaadhay wafdiga heer federaal ka socday wasaaradda caafimaadka dalka Itoobiya waxayna ka qayb galeen maalinta xuska kala korinta caruurta waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdiga ka yimid heer federaal maalintan kala korinta caruurta ayay u tahay muhiim waxaana ka hadlay halkaasi wasiirka caafimaadka dawladda deegaanka Soomaalida Dr. Yusuf caqabadaha gaarsiinta ama helitaanka haddii ay noqoto qorsheynta qoyska hooyooyinka inay helaan iyo talabaad fikirro khaldan oo laga qabo taas ay bulshadeenu fikrada ay ka qabaan haddii kol ay hooyadu ay isticmaasho mar dambe ayna dhalaynin haddii kol ay isticmaasho dhibaato iyo khalkhal dhinaca caadada uu ku keenayo iyada iyo caafimaadkeegana uu fiicneen diiniyana kuwa si khaldan uga dhiga maadaama jiraan kolka taas waxa looga daleeyahay maalintan inaan halkan ku xusno oo la sacabeeyo qudhaata maahine in shakhsi kasti mas'uul baa laga wada yahay xafiisyada bahwadaagta laga wada socdaa wixii culays ama la qaadan karayo in halka laga qaato oo dhaxda loo guntado qaabkan kor ugu soo qaadi lahayn iyo qorsheynta qoyskaba aan u gaarsiin lahayn si looga wada shaqeyn lahaa in meesha ayaa loo wada fadhiya kulli kolka taas waxaan dhihi lahaa hay'adaha bahwadaagta meesha noogu yimiday dhankiisa kale waxa halka ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo kala korinta waddanka وحسب الجلود يا فاميلي بلانك كلا كوريت وقيد من الفاميلي بلانك قيد كراوة اللي كل كراوة فاميلي اللي بلانك كلا ويجت حفلة ما أنت أقول شو بمعنى هي هذا فهمنا وحقيقة هتاب محاولة إنه هتابين إن أريمها فاميلي بلانك أو كلا كوريت وبادك الدنيا كنا وقوم سريع مركب واستعداد كعادي عالمية يكذب هذا طالك بليس لا هو سريع maxaa ugu wacay guud ahaan focus ka hadda waxa la saariyay waxyaalaha la xiriira iyadoo ay tahay mid si gaar ah loo taabanaysa waxa hore loo soo sheegay ayaan xasan xoogsaday STN magaalada Jigjiga